السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijyada imtixaanaha ah ee barashada luqadda Python. waxaan casharkeena maanta ku baranaynaa waxa la yiraahdo comments. Comments waa notice ama explanation dheeri ah oo loogu talagalay inaad programka ay ku dhex qorto. aniga waqti badan ka qaadin haddii aan tusaale ahaan halkan tago hadda oo kor aan tagno waa challenge-geena ugu dambeeyay. haddii aan rabo waxa uu qabanayo programkan inaan sheego tusaale ahaan waxaan dhihi lahaa printing a triangle okay, for example a triangle. now that is sidii xisdana hore aan sheegnay haddii aad aragto calaamadahan guduudka ah wuxuu sheegayaa problem ayaa jira hadaa isku day inaad ran dhahdana error ayuu ku sheegi doonaa ku dhahaya cilad ayaa jirta waxaan ma aqaanin uu ku leeyahay marka ma fahmin ayuu ku leeyahay qaab loo turjumo waxaad taqaanaa Python waxaan dhahnay waxaan isticmaalnaa interpreter waxa aan qorayno inaga high level language aan ku qorayno waa la turjumayaa si loogu turjumo computer wuxuu fahmayo oo aha machine code ama machine language marka waxaan ma fahmaya ayuu ku leeyahay waxaan maxaa ugu dalayaa marka aniga in la turjumo ugu madan leeyahay waxaan u dalayahay in uu interpreterka waxaan rabaa inaan dhaho waxaan ha turjuminay waa ciwaan qoraalkayga aan rabaa inaan ku sharaxo code-kan wuxuu qabanayaan ku sharaxay sida aan ugu sheegay marka waxaan horey ka dhigayaa calaamadan hashka ama fargeeska wixii aan dhahdaba calaamadan waxay u sheegaysaa qoraalka soo socdo looguma talagelin in uu turjumo interpretanku iska ignore garee qoraalkan waxa lagu talagalay sharaxaad aniga aan sharaxayo Soomaali waa ku qortaa hadii aan dabcan waxaan leeyahay tusaale ahaan soo daabac triangle muxuu ahay Soomaali soo daabac triangle saddex geesood ama saddex xagal waxa dhihi jirtay now that is qoraalkan uu iska ignore gareyn doonaa interpreterku sababtu waa maxay because waxaan u sheegay qoraalkan looma baahno inaad turjunto code-kii kama tirsano waaye waa comment marka commentigu waa maxay waa explanation dheeri ah oo programkii aan ku dhex qorayo marka uu programku bato marka ayaa waxa la sameeyaa qayb walba waxa ay qabanayso ayaa lagu hor qoraa haddii aan hadda ran dhaho inteedaad soo baxdo ayaa soo baxayso laakiin waxaan helay qaab yar oo aan ku sharaxi karo programkii wuxuu qabanayo haddii aan tago programkii kale halkaan ku qornaa waxaan rabaa tusaale ahaan programkan wuxuu qabanayo inaan xogaa yar ka sharaxo waxaan leeyahay tusaale ahaan mathematical calculations ama waxaan leeyahay xisaabaad ayuu programkan ula tacaamuli doonaa waxaan dhihi karaa haddii aan rabo fast programkii koobaad shaqadaas uu qabanaya haddii aan ran dhahno intii uu qaban lahaa ayuu qabanaya wuxuu rabaa sida aad last time aragtay right click inaan dhahno kabacdina aan dhaho run waxaa ran garaysaa programkan wuxuu leeyahay basic math halkii ka bilaabaya kan marka ma turjumaya hadaa fiirso marka waa qoraal aad ku dhex qori karto code-kaaga oo sharaxaad bixinayo qoraalka marka maxaa loo isticmaalaa dhahnay waxaa loo isticmaalaa inaad sharaxaad ku bixiso marka haddii aad rabto waa sadar walba hortiisa waa dhihi kartaa sidaan oo kale haddii aan tusaale halkan addition waa dhihi karaa markaan halkan haddana tago haddii aan dhaho waa dhihi karaa subtraction dabcan haddii aan ran dhaho waxba ma soo kordhayso laakiin sidaan oo kale macno badan ma sameynayso in subtraction multiplication division mid walba inaan ku hor qoro xoogaa tiradii aan ka badiyey laakiin waxay ku qaban doontaa inaad tusaale ahaan ciwaano koo kale marka koo aan bilaabayo haddii code xoogaa shaqo qabanay hadda wax kale hadaan bilaabi lahaa halkan oo kale aan dhaho waxaanay qabanayaan iyo wixii lamidka haddii aan soo koobno commentska waxaan dhahnay waa sharaxaad yar oo programka lagu dhex qorayo sharaxaadaas waxaa loogu talagalay qofka programka akhrinaya ayaa loogu talagalay Python interpreter ama turjubaanka code-kan aan qorayo turjumayana uu iska ignore gareyn doonaa wuxuu ku fahmayaa in uu ignore gareynayo keenayso calaamadan markaa ka hormariso wuxuu fahmayaa waxaan inay yihiin comment oo aan loogu talagelin in la turjumo oo programka ka mid ah laakiin waa sharaxaad dheeriye oo programkii aad ku dhex qoranaysid intaas ayaan kusoo koobaynaa casharkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh